dowlad goboleedka magacoodii galmudug madaxweyne xaaf iyo maamulkiisa waxay idinku tahay ceeb idinkoo jooga ninka noocaasa oo isnagoo islaam ah boqolkiiba boqol nin saasa inuu inagu dhex jiro xataa laga shakiyo leeyahay fiican yahay uun oo idaan horey ka qabanin ninkaas mujtamaca idaan dhaafinin ceeb bay inagu tahay marka tallaabo degdeg ah saasaan leeyahay shacabka reer gaalkacyo culummada reer gaalkacyo arrinta ayaan loo kala hadhin waa nebi maxamed oo la aflagaadaynayo diinta islaamka oo la aflagaadaynayo waa munkar joogta habeen iyo maalin marka waxaas inuu dhaxdiina lagu hayo waa arrin aad u liidata nin walba carruurtaada ka soo qaado carruurtaada neetiska uu barayo dowladdii soomaaliyeed waddankao dhan buu xilidinka saaran yahay waad u dhaarateen haddee ninkaasoo kale waad maqasheenoo waad ogtihiine maxaad waxooga qaban weydeen xil baa idinka saaran ninkaas waa inaad wax ka qabataan laga bilaabo madaxweyne farmaajo ra'iiska xukuumadda xasan cali khayre kulligiin cabdiweli inaad wax ka qabataan baa idin saaran hadda laga dhawaajiyo iyadana ah dastuurkeena daa'iman waxaa maqli jirnay dastuurka waxaa ku qoran qodob kasto oo diinta islaamka kusoo horjeedo ka mid ma aha dastuurkeena waa beri baan ka nahay haddee waxaa la sheegay haddana arrimo ay aad u taabanayso arrimaha qoyska ah oo waxyaababa badan oo diinta meel ugu dhac ah oosan sharciga ogoleen in laga sheegay oona la dhigay haddana wasiiradiina la leeyahay waa ansaxiyeen waxaas wax kama jireen waayo hadduu cilmaan yahay cid aan ka yeelin sida aan ugu diidayno in diinta la bedelo ee shacabkan laga bedelo caqiidadiisa diintooda cid aan ka aqbalayno ma jirno wasiir aan ka aqbalaynin xildhibaan aan ka aqbalaynin sheekh aan ka aqbalaynin dictator aan ka aqbalaynin ra'iisul wasaare aan ka aqbalaynin madaxweyne aan ka aqbalaynin inaan u dhimanaan diyaar u nahay in noola dilaan diyaar u nahay waxaan diyaar u nahay inaan u nasiixad hadday diidaan waan ka biri naqanaynaa waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Soomaaliya inuu arrintan soo yeero la xisaabtamo xeelaaluhu waa inuu maxkamadda uga yeero gabadha waxaan soo gudbisay ra'iisul wasaare inuu xilka ka qaadaa waxaa xusid mudan inaan la wadaagno culimadu ay la kulmeen maadaama arrinkan uu dhacay ay daba socdeen gudoomiyaha golaha shacabka al-ustaad maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo nuqulna aan u geynaa waxyaabihii qaladaadka ku jiray aadna uu soo dhaweeyay ballan qaadana inuu golaha hordhigi doono marna uusan aqbali doonin wax diinta ka hor imaanaya inay golaha maraan sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaan la kulannay arrinta waa ku baraarujinay waxaan u sheegnay inuu ku khaldamay in golihiisa uu maro wuxuu muujiyay inuu ka xumaay runtii oo uusan u malaynayn haddana uu ogol yahay in baarlamaanka laga soo celiyo oo dib loo saxo taana waan ku ammaanaynaa ra'iisul wasaaraha inkastoo aan ku eedaynay qaladka in golihiisa uu maro barnaamijkaas inaysan ahayn haddaan waxay idinkaga taabtay qodobada ugu khatarsan oo ku dhex jira qayb ka mid ah oo in yar ah qodobka 25aad bogga 24aad waxaa ku qoran si fiican loo dhagaysto wuxuu leeyahay qof kasta wuxuu gelayaa faldimbiyeed wuxuu leeyahay qodobkaas dabcan qof kasta wuxuu gelayaa faldimbiyeed guursi caruur wixii ka yar 18 sano 18 sano wixii ka yar waa faldimbiyeed haddii la guursado aawa gabdhihii Soomaaliyeed maamooyinkii iyagoo 14 jir 16 jir 16 jir u guursaday waxay dhaleen kufsiga loo yaqaan waxa soo dhan waa nasiib darro waxayna ka asalka u ah 18 sano caruur la yiraahdo marka hore 18 sano afar dhal waaye gabdhaha qaarkood afar ay soo dhaleen marka waxa waaye yaa yiri waa caruur diinteena islaamku ma qabto waa qaanuun gaalo waaye annaga haddaan nahay Soomaaliya muslimaan nahay shaafiiciyaan nahay 15 sano gabdhaha noogu qaangaaraan qaangaarkaas oo leeyahay waa kii qaalibka ahay 13 sano 10 sano 12 sano hadii dhiig ugu yimaado caado gabadha waa qaangaar way mar hadii qaangaarta caado ay u timaaday ka qabaysatana ninka rabtay guursan kartaa waxa weeye marka waa xadgudub cad oo looga hor yimid iyo fiqhiga iyo diinta islaamka xeerkaas ay ku qoran tahay waxa kale oo kamid ah oo ku qoran oo la yaab leh waxyaabo ka sii dardaran oo ay kamid yihiin in fiir qodobkan soo qoran yahay faqrada G haddii waa qodobka dabcan 46aad bogga 4aad faqrada G haddii waalidku caruurtiisa ku sameeyo fal dembiyeedka jinsiga galmoosha
waa lagala wareegayaa sidaas waxa loo soo turjumay nidaamka gaalada sidoo ay loo soo turjumay waa lagala wareegayaa lagala karaa oo loo dhiibi karo qof kasta ama hay'ad kasta oo xil saaran gargaarka carruurta Soomaaliya shaqadeeda ma ahanba jawaabta culimada ka bixisa waxa way jawaab arrinkan waa arrin ka hor imaanaya dhaqanka iyo diinta islaamka ee suuban marna